qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maanta ee Banjid Media Production waxaynu ku soo qaadan doonaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo toddobaadkii ugu dambeeyay hawlo shaqo u joogay gobolka Awdal ayaa warbaahinta waxay u sheegeen waxyaabihii ka soo baxay kulamadii ay la yeesheen waxgaradka culimaawidiinta aqoon-yahanka iyo sidoo kale haweenka iyo dhalinyarada gobolka Awdal muddadii ay ku sugnaayeen wafdigan oo gobolka Awdal u joogay adkaynta nabadgelyada gobolka iyo horumarinta bulshada ayaa kulano ay la yeesheen waxgaradka gobolka muddadii 6 maalmood ahayd ee ay joogeen gobolka qodobadii ka soo baxay waxa warbaahinta u akhriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Somaliland mudane Siciid Habane kaasi oo sheegay in gobolka ay gaareen 19 bisha October isla markaasina muddadii ay joogeen kulamo kala duwan inay la yeesheen waxgaradka gobolka taasi oo go'aanada ka soo baxay kulanadaasi ay kala ahaayeen go'aanadana lagu sheegay in laga wada shaqeeyo amniga guud ee gobolka sidoo kale in la ilaaliyo midnimada qaranka Somaliland waxa kale oo intaasi raacda in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo liddi ku aqranimada Somaliland in laga wada fogaado hadallada iska horkeenaya bulshada Somaliland iyo in aanay waxba ka jirin hadallada dalka dibadiisa ka soo baxaya ee lagu kala qaybinayo bulshada Somaliland ee walaalaha waxa uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Somaliland uu intaasi ku daray in xukuumaddu ay dhageysatay cabashooyin ay dadka gobolku soo jeediyeen isla markaasina la ballan qaaday in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qaban doono wixii cabasho ay la xidhiidha ee ka jira deegaanadaasi oo ay u soo jeediyeen xukuumadda Somaliland bulshada ku dhaqan guud ahaanba gobolka Awdal barnaamijkii maanta dhageystayaal ayaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono iyo wararka kale ee soo kordha insha Allah waa guud ahaanba Banjid Media Production oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh guddiga la dagaalanka sixir bararka iyo kor u qaadista qiimaha shilinka Jamhuuriyadda Somaliland iyaga oo kaashanaya ama ka duulaya muhiimadda ay leedahay adeegsiga lacagaha Jamhuuriyadda Somaliland maadaama oo ay tahay lacagta sharciga ah ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasina maanka ku haya saameynta taban ee ka dhalan karta xasilooni darro ku timaada qiimaha lacagta Somaliland ee dalka waxa ay wada tashiyo la yeesheen qaybaha kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay hay'adaha dawladda ay arintani khusayso waxa kale oo ay kulamo la yeesheen ganacsatada iyo khubarada dhinaca dhaqaalaha oo kala duwan waxaanay soo saareen go'aamadan waxa la farayaa dhammaan ganacsatada iyo hay'adaha bixiya adeegyada kala duwan sida dugsiyada waxbarashada jaamacadaha shirkadaha korontada goobaha caafimaadka iyo kuwa iibiya alaabta ama alaabooyinka in ay ku iibiyaan adeegooda ama alaabta lacagta shilinka Somaliland waxa kale oo ay guddidu go'aamisay waxa la farayaa dhammaan sariflayaasha ganacsatada kala duwan iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha la isku diro ee telefoonada baananka iyo hay'adaha maaliyadda inay ku dhaqmaan xeerka sarifka maalinlaha ee banka Somaliland uu soo saaro ama heerka uu soo saaro waxa la farayaa shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha la isku diro ee telefoonada iyo baananka leh nidaamka elektarooniga sida Wafi, Dahab Plus, Boss iyo Premier Wallet inay joojiyaan habka iyo hanaan kasta oo sahlaya in la isku diri karo wax ka yar lacag $100 waxaa la farayaa sidoo kale baananka gaarka loo leeyahay in ay fududeeyaan maaliyadda ay maalgelinta ay bixiyaan si loo furfuro ganacsiga iyo shaqo abuurka qodobka shanaad waxaa lagu sheegay waxaa la farayaa dhammaan baananka gaarka loo leeyahay in ay bulshada u furaan account xisaabeedyo ku salaysan lacagta shilinka Somaliland waxaanay dhaqan galaysaa ugu dambeyn 25 November haddii ay beedmo gabagabada waxa amar adag lagu soo rogay oo lagu sheegay cid kasta oo u hoggaansami weyda go'aanadaasi waxa laga qaadi doonaa
tallaabo sharciga waafaqsan. hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka Somaliland oo kaashanaysa hay-adda IOM ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay 47 tahriibayaal oo laga soo celiyay dalka Liibiya. dadkan oo lagu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxa uu gooreen halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka Somaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Xini oo sheegay inay soo dhaweynayaan tahriibayaashaasi hore dalka uga baxay oo dalka dib loogu soo celiyay. dadkaasi oo tiradoodu dhantahay 47 qof waxaanu gudoomiyuhu intaasi ku daray in dadkan dalka ku soo laabtay qof kasta qoyskiisii loo geyn doono. waxaanu intaasi ku daray in hay-adahan ay u mahad celinayaan hay-adda IOM oo kaalin weyn ka qaadata soo celinta dadka daafaha dunida u tahriiba ee go'aansaday inay dalkooda ku soo laabtaan. waxa iyaguna dhankooda halkaasi hadallo la xidhiidha xaaladaha culus ee ay soo mareen halkaasi ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadkii tahriibay oo sheegay in xabsiyo jirdil ay la soo kulmeen balse iminka ay ku faraxsan yihiin in dalkooda ay ku soo laabteen. gabagabadii waxa hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo hay-adda IOM u mahad celiyay qaar ka mid ah waalidiintii caruurtoodu dalka dib ugu soo celiyay oo sheegay in dhibaato iyo werwer aan la qiyaasi karin ay ka qaadeen caruurtoodaasi ka maqan.